يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم waxay lahayd sabab xadiis yani saxiixa waxa ku soo arooray inay ku soo degtay Abdullah ibn Hudhafa saxaabigii la oran jiray iyo sariyadiisii inay ku soo degtay ayaa ku soo arooray xadiis saxiixa hayesha ayadu waam oo waxay noqonaysaa inay ku saabsan tahay cid kasta oo amar u saaxiiba oo muslimiinta kamida taacada la ateecayo inay aayadu amrayso laba qowl bay culimadu ka leeyihiin ulul amriga aayada looga jeedo بعض أهل العلم waxay yiraahdaan waxa loo jeedaa ulul amriga culimada loo jeedaa ulul amri minkum waxa loo jeedaa al ulama wa qawl labaadna wuxuu leeyahay waa madaxda talada guud haysa ee dadka marka maamulaysa u talinaysa culimada qaar kood mid bay tilmaameen al cilmiga qaar kood waxay sheegeen inay labada macna isdiideyn aayadu labadaba caam ku tahay waana sida jamac badan oo culimada kamida ay mareen oo ibn Kathir kuba kamid yahay oo oranayo waxa fiican in labadaba lagu xambaaro al umara wal ulama labadaba inay soo galiyaan culamo badan oo muhaqiqiina si arjaxay xambaarista labadaba lagu wada xambaarayo ba culamo badan oo muhaqiqiina ay arjaxeen oo yiraahdaan saasa saxiixa ama raajixa waayo qolo waxay u ehlihiin amru dunya oo maamulka adduunyo iyo taladii adduunyo ayay hayaan qolana waxay u ehlihiin amru diin amarkii diinta oo kitaabkii cilmigii bay hayaan marka ulul amri labada amarba waa soo galiya al umara wal ulama ayadu saasay caam ugu tahay oo labada noocba u soo galiya baadiba hadaba waxay yiraahdeen waa ulul amri waxa loo jeedaa madaxda cuduusha ah ee cadaaladda u saaxiibka ah sida khulafaa ur-raashidiinka iyo madaxda kale ee cadaaladda u saaxiibka baa loo jeedaa hadalkoodu wuxuu daaran yahay haday madaxdii marka ay dalamo noqdaan oo dulmi u saaxiib yihiin waa sida tirada badan leh awqaadda badankeeda jirtee marka aayadda ma soo guda galiyaan laakiin qowlka noocaasi waa qowl qalad ah aan sax ahayn qowlka saxdi waxay tahay madaxdii talada haysay ee dadka maamulaysay inta aynay gaalnimo la imanin oo milada ka bixin inay xukunkii umarada yeelanayaan oo samciya taaca ay leeyihiin laakiin wixii macsiya dambi abaan lagu ateecaynin oo haday dambi amraan dambiga la ateeci maayo la raaci maayo laakiin wixii dambiga ka soo haray baa lagu ateecayaa dambiga dartiina loogu bixi maayo oo lagu lama dagaalamay waxaana ku soo aroortay mawduucan adilla badan iyo ahadiis fara badan baa ku soo aroortay ahadiista waxa kamid ah xadiiska saxiixaynka xadiis Ubaada oo sheegaya nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu saxaabada kula baayactamay samci iyo taaco inay maqlaan oo ateecaan waxay jecel yihiin بمعنى وحي سهلا iyo waxa marka ku adag mid walba waxay nacayaan iyo waxay ka raaliyihiin mid walba inay ku ateecaan wa alla nunazi' al-amra ahlihi qala illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allah fi burhan nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam oo saxaabadii kula baayactamay waa inay talada ku qabsan cidda haysa ina aragtaan mooyaane gaalnimo cad oo xagga ilaahay ka haysaan daliil ka haysaan حجة دليل عضينا يا أكايسان مويه سكلا إلى أن ترى ذو قبسا وألا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان شروط أدق بالغفرة سكلا وإن أن ترى ذو قبسا إلا أركو قال لي معد قال لي ماذا سأيتاي شيء محقق ولا أركيه أما يقين له أقيه رؤيا لقى عبرة العلامة محمد بن صالح العثيمين يا علماء كلمة وحي يراهدين فلا يكفي الظن ولا تكفي الخرائن ملك ما في الله إلا يراهدون ملايال إسا صوتر يا وحي الشيغيا نيكا مدحدين وقاليه يا أما اللي يراهدون أمارات بضن باسدا عضينا يا كما في الله موضوعا وإن يتهي قال لي معد ويتهي مثل أركيو مرئيا بالبصر قال لي ماذا سيتهي وحلم إذا إن يتهي مد يقين قلبي قال له قوقيه وهو بالله أكسوي وهي الرؤية رؤية قلبية هي رؤية بصرية اللي بضا مد والبنغطاء وانا هنا كفر تاي فاسقنا ما هنا تاي كما في الله بورنا يا شيخ ابن عثيمين يا علماء كلام كفرا بواحا علماء بدل يكون فسرين
laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri waxaa loo jeedaa sida nawowi iyo shawkaani iyo ay tilmaameen waxay yidhaahdeen laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri bawaax macnihiisu wuxuu yahay ta'wiilaan gaalnimo ahayn waa inaanu aqbali karin ee haddii ta'wiilaan gaalnimo ahayn uu aqbali karo dee bawaax noqon maayo laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri cindakum min allahi fiihi burhaan xujo waa in loo hayaa in shaygaas weliba gaalnimo yahay burhaan waa awdaxu daliil waa daliilka ugu cad weliba min allahi baa lagu qayday waa in ilaahay ama rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam daliil looga hayaa kuma filla sheekh hebel baa yidhi arrinkaasi waa gaalnimo sheekh fulaan ama sheekh callaan ayaa yidhi shaygaasi waa gaalnimo kuma filla ya ilaa waxaa rasuulku sheegaa sala allahu alayh wasalam oo wuxuu xagga ilaahay ka keenay cindakum min allahi fii burhaan waa in nas loo hayaa ama aayad qur'aan ama xadiis nebi haddaan daliil loo haynin waa in aftaa bihi bacdu ahli cilmi inay gaalnimo tahay haba fatwoodaanbe loogu bixi maayo weliba cidda xukumaysaa waa inay leedahay cindiya cindakum ya ay tahay cid cilmi leh ee cidaan cindiye lahayn ma xukumi karto oo odhan kara cindi kada taasna waxaa laga tilmaamaya ahliya cilmiya waa inuu leeyihi shuruudahaas ilaa ay dhammaystirmaan inaan talada lagu qabsan karin laguna bixi karin ayaa xadiisku caddaynaya axaadiis badan oo kalea soo aroorto mawduuca sheegays oo nabigu uu tilmaamaya sala allahu alayh wasalam alsamcu waltaacatu cala almar'i almuslimi fima axabba wa karih qofka muslimkaa waxa saaran maqlitaan iyo ateecitaan wuxuu jeclaysto iyo wuxuu karaahiyaysto mid walba uu madaxda ateecayo maaha wuxuu jecel yaho keliya xataa wuxuu nacayo waa inuu ku ateecaa marka taacada madaxda la ateecayaa waa qurba yutaqarabu biha ila allah waa qurbo iyo cibaado rabbi loogu dhowaanayo saas aawadeed baa waciiddo waaweyne ku soo arooreen haddii la maqli waayo ama la ateeci waayo sida xadiiska markaa bukhaariga ibnu cumar soo wariyey uu sheegaayo in nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi kii waxa weeye taacada ka baxa laqiya allaha yowma alqiyaamati walaa xujata lah aw kama qaala sala allahu alayh wasalam maalinta qiyaamo ilaahay wuxuu la kulmaa isagaan xujo lahayn wax xujaa isagaan lahayn ayuu aakhiro ilahay la kulmaa bacdibaa waxay yidhaahdeen madaxda la ateecaye la yidhi sharcigu ina amray inaynu ateecno bacdibaa waxay yidhaahdeen madaxda sharcigu ina amray inaynu ateecno waa madaxda cadliga u saaxiibka ah laakiin haddii dulmi ay ku dhacaan ama ay la yimaadaan waxba lagu ateeci maayo hadday khulafaau raashidiinkii oo kale yihiin waa la ateecayaa hadday laakiin fisqi ama dulmi la yimaadaan ama macsi ay amraan wax taaca ma leh waana in lagu baxaa arrinkaasi waa baatil nusuustana waa khilaafsan tahay ictiqaadu ahli sunnati waljamacana waa khilaafsan yihi axaadiis fara badan oo mutawaatira ah baa soo aroortay oo sheegaysa mar walba in la ateecayo axaadiista aynu sheegnay kuma koobnay axaadiis badan oo kalea jirta nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam man ra'aa min amiirihi shayan yakrahu falyakrah maa ya'tii min macsiyati illaah walaa yanzicanna yadan min taaca xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ninka ka arka amiirkiisa wuxuu nacaayo waxa uu la imanaya macsida ama dembiga ha naco oo ha karaahiyaysto walaa yanzicanna yadan min taaca gacanta ateecitaanka yaanu ka siibin waxa lagu karaahiyaysanayaana inuu macsi la imanayo tahay buu xadiisku sheegaya falyakrah maa ya'tii min macsiyati illaah walaa yanzicanna yadan min taaca wuxuu kaloo nabigu yihi sala allahu alayh wasalam yacni madaxdiinna waxa ugu shar badan kuwa nacaysaan iyaguna idin nacaya oo aan nacdalaysaan iyaguna idin nacdalaya ayaa madaxdiinna ugu shar badan madaxdiinnana waxa ugu khayr badan kuwaa jeceshiin iyaguna idin jecel markaasay yidhaheen yaa rasuula allah afalaa nunaabiduhum bisayf wa fii lafdin afalaa nuqaatiluhum hadday shiraaru a'imma yihiin oo madaxdii ugu shar badan yihiin ma la dagaalannaa riwaayada kalena waxay sheegaysaa seefta ma ku tuurnaa qaala laa maa sallow riwaayada kalena waxay sheegaysaa laa maa aqaamuu fiikum asalaa muslim baa saxiixa ku soo wariyey maya inta salaadda dhexdiinna ay ku oogayaan hala dagaalamina riwaayada kalena waxay sheegaysaa inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa maa sallow intay tukanayaan hala dagaalamina yani iyagoo shiraarul a'imma ah buu nebigu amrayaa sala allahu alayh wasalam intay salaadda la imanayaan inaan lala dagaalamin xadiis kale nebigu wuxuu ku sheegay sala allahu alayh wasalam wain duriba dahruka wa ukhida maaluka fasmac wa atic muslim baa saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam haddii dhabarka lagaa garaaco madaxdu ku garaacdo wa ukhida maaluka xoolahaaga ay kaa qaadaan oo lagaa qaado xoolahaagana fasmac wa atic nebi maxamed baa saa odhanaya sala allahu alayh wasalam maqalo ateec hadda iyagoo dulmigii la imanaya oo dadkii dhabarka ka tumaya
وحوله كقاض يا نبي محمد وحو أمري صلى الله عليه وسلم إن لم مقلوه الله أطيعه ساسو أمره بحيطانك الله قبح يا مدحضنا والله ينقرهبي والله ينوديني علماء أهل السنة والجماعة وحي تلمامين اعتقادك أهل السنة والجماعة إنه يهي إن المدحض الله قبحين ولا لا دقال من ضد كان الله قبحين واتشرتا بعض كم إذا تابعين تي أما بعض السلف إن يكرد عضي زلو أي قاركوت كبحين مدحدودي لكن علماء وحي يلاهدين أحاديث تديد إيساء أيان سوق قارين وحجة كوكمين لكن مركزا بأحاديث وحي نقطة مد مشهورة وعانة أهل السنة هنا كتب العقائد أي كد وينان وكل شيغان مسائشة إن كم تاي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة إن المدحض الله بحين يقول ظلمك السمينية يقول فسقك الله إيمانية يقول حمانتي الله إيمانية لكن معصي لقوا أطيع مايو لكن لقوا أطيع مايو معصي مكة السنة يسوى لقوا بحيا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بان النبي يقول صلى الله عليه وسلم أطيعتان مخلوق لقوا أطيع عاصيتان كإله خالق لا عاصية لقوا أطيع ما جرتوا حديث كلام حشاقية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة هذو معصية أمره مقلتان أطيعتان مره وحلوش هذا خصوص كم معصية لقوا أطيعين سيدي حديث كلام قصار رقمي وهي حديث كلام مسألة النصف يكوتان وحيث المام إيسا فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة حديث كلام مسلم حشاقية وينضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع دبر كانوا ضدك كقراعيو يحولها وكقاضيانا دوا ظلمي ومعصي هذا مع ذلك وأمر يا النبي طاعدي النبي قال له ويدي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا أمري مادان وحقه دي نقدونان إن نطيعون مقالوا حق يجينا النودي دان كورا يا تؤدون الذي عليكم وسلوا الله حقكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذنكو حقي ذي ساربا قدن إيسان إلهينا حقنا كبر إيسان يا حقينا إلهي با كبر إيسان حق إذنكو إذن سارنا وقدن إيسان حديث كان مركز صحيح يسمونه كسوغي وصحيح أحاديث موضوعة كسو أرورتي آدي بيبضنت حديث كثيرة وحسيدها اللو يري سي وحوي مسلمين تؤين فساد قدعين وأن نظام كود إيحوق قودو أن أكلت تقل نظام كودنا أبربرين ويا إمام معصوم هل ما يا النبي محمد دبدي صلى الله عليه وسلم من الدنب كرد ورانا مرنا بأن قال دمين تمه ليان هدي الله إلى هذا الدنب الروح دنبابا وهو مدحني مدي وكجب حياه أضيف له أطيع مايو ده وحين قلنا يسطر المسلمين تو لبا إسراع مس كل يبنيك مدح ده الدنب اللي جواي مايو وخلط ما يا مو دنبابي هدو دنبابا هدي له كتورة النظام كيف بربريا ومدي بكره هذا يسا أودي بتشبه يسا عدا وجودي بيقول له ميان الاجتماع يكورنك يمدني ماذا يسكتير سنانتا يا اسم مغلدة يا كلا دنبينتا أي حوج يا أود لجوهرية لكن هذه النقطة أنا يحوي مر والبا أي سقف صدان وإسكوري ما دان وإسكور دعان أما ضحضة يا الشعب كمر والبا مركا إسقف صدان ويقول إسكو مشغولان عدا وجودي قالنا وكم مشغوليان عدا وجودنا رجعتها أيوب ساوق وضيا مركا عين المصلحة أي كتشرته ساس أدلة ذا بدن أدلة ما إنه هذا الشيء حديث تقصارته وحديث فربضن متواترة إيه يربينه كشجنا حديث ذس رمانا أحاديث تايلو الشجرة وأحاديث صحاح وصحيحة مركا وحل أمر أيام مضحدي اللي هو أطيعه وحي أن معصي أهين معصي مرنا بعيد اللي هو ما أطيعه وهذا مركا شيء معصية إنك مضحدي أمره ولا هذا وحى السماية وعاصر أي معصيتها هي أمركا لما قاضني خصوص كمعصية اللي يقول لك علي لما يمريسي لكن وحي سجى الدنب كواه وهذيك الدنب أنكو أهين هديتهاي سيد حوله وكاقاضو كله هديتهاي يعني وحوي مصلحة الدرادد أيها ذو تنازليس أما أرانيسي عشورتي الشريعة ما دام ينكو أولين عشورته مركا ورا ومركا شرعي معها وشيئا شرعي هين عشورته أصلا بقى حتى يضع عين كاتهاي تدكينا يلاهدان وح عشورة ما دام عشورته أين شريعة كسقنين وكبنا عشور بحين مينو وتاس أي كان ستم مضحدينا يسكو دعان تفساد بقى مركا كإيمانية تنبه أهاتو يسجي دنبي كتان ساسو مركا النبي يقول وينضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وأولي الأمر منكم وحلقة قادنا إياه إن كان مضحدي إلا وإنه يهي روح مسلمة وإنه يهي هدو قال لي يهي وحطاعة مله
awoodoo la waayo mooyaane waa in lagu baxaana oo talada laga tuuraa oo muslim lagu bedelaa laakiin haddaan awood loo haynin in gaalkaa awoodda le muslimiinta lagu cariyo lagu dira ma aha waxay ku xidhan tahay bixitaanka lagu baxayaa in qudro iyo awood loo leeyahay ku xidhan tahay laakiin imaara sharciya ma aha madaxda sharciga waxay lahayd ma yeelanayo walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila wilaaya caama iyo wilaaya khaasatoonna muslimiin kuma laha gaal isticmaarkii dee waxa weeye gaalada ahaa ee waddannada islaamka ama waddanno badan qabsaday muslimiin iyo kayrkoodba bilaad islaam iyo bilaad kaleba qabsaday madax ma ahayn saas aawadeed in la ateecaa laazim ma ahayn sharcan mid la amray daacadiisa ma ahayn waxaa la sheegay wadaad baa waagii yidhi ingiriiska waa in la ateecaayoo la maqlaa markaasaa lagu yidhi maxaad ku tidhi soto ilaahay yidhi wa ulil amri minkum markaasi minkum waxaa loo jeedaa ay min jinsikum jinsigiinna iyo noociinna mid ka mida oo bini aadama amarna u saaxiiba ateeca tafsiirkaasi waa tafsiir markaa culammada islaamka siday ku fasireen oo dhan bay khilaafsan tahay waayo minkum waxaa loo jeedaa min almuslimiin waa inuu muslimiinta ka mid yahay haddaanu muslim ahayn wax taacaa male aayadda kalena ilaahay muxuu yidhi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila marka wax wilaayo ah inay mu'miniinta ku lahayn buu ilaahay sheegay xadiiskiina muxuu yidhi waan laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan markaa gaal wax taacaa male fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir atiicu allaha waxaa loo jeedaa kitaabka ilahay ateeca wa atiicu rasuulana waxaa loo jeedaa markuu rasuulku joogay sala allahu alayh wasalam atiicu rasuulana waxaa loo jeedaa nebiga sala allahu alayh wasalam sunnadiisa in la ateecayo marka sunnada rasuulku sala allahu alayh wasalam inay tahay waajib in la raaca inay tahay baa laga qaadanaya fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir wax kastoo la ysku khilaafana ilahay iyo rasuulkiisa u celiya ila allahi ay ilaa kitaabih kitaabka ilahay u celiya walrasuuli rasuulku markuu noolaa isaga isula tagaa macnuhu dhacay laakiin markuu dhintay dabadeed in sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam loo celiyo ayaa laga qaadanaya bacdibaa waxay u daliishadeen qiyaas wax la yidhahdo inaan lala imanayn waayo waxaa la yidhi kitaabkiiyo sunnada u celiya marka qiyaas maxal male bay yidhahdeen qiyaas maxal male laakiin wax daliili taa uguma jiro siday ahlucilmiga qaarkood ay caddeeyeen oo waxay yidhaahdeen masaladu haddii ay tahay mansuus ay tahay waa in kitaabkiiyo sunnada loo celiya oo lagu nasgareeyo kitaabka ama sunnada laakiin haddii mansuus aynay ahayn oo kitaabkiiyo sunnada aan lagu nasgarayn sida u dhowaanshaha badan in loo cesho oo suuro lagu nasgareeyey haddii ay shabbahdo suuradii loo cesho dee waxay noqonaysaa qiyaaskii kamana baxayso kitaabkiiyo sunnadii in loo ceshiyo ila kitaabkiiyo sunnadii xukum lagu sheegaa laga qiyaas qaadanayaa waa ilxaaquha bilashbah sida ugu dhowaanshaha badan ee kitaabkiiyo sunnada loogu sheegay baa la haleeshiinaya taasina waxay noqonaysaa qiyaaskii bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen aayadda waxaa ku sugan adilada sharciga ee afarta ah ayaa afartaba laga qaadanaya aayadda waxaa looga qaadanaya atiicu allah waa kitaabkii qur'aanka ahaa wa atiicu rasuulkana waa sunnadii nabiga sala allahu alayh wasalam farudduuhu ila allahi walrasuul kitaabkiiyo sunnadii baa laga qaadanaya ijmaacii waxaa laga qaadanaya bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen wa ulil amri minkum marka la yidhaha culammada mujtahidiinta baa lagu fasirayaa dee waxay ku ijmaacaan in la aqbalo waxaa ka sii waadaxsan qowlka culammada odhanaysa fain tanaasactum ayaa mafhuumu shardiga waxaa laga fahmaya haddii aan la yskuba khilaafin xaajo looma qabo in kitaab iyo sunne loo celiyo sideedaa loo qaadanaya ila haddaa isku khilaaftaan baa layidhi u celiya kitaabkiiyo sunnadee haddaa ku ijmaacdaan oo culammadii dhammaan ay ku ijmaacaan ila khitaabkan waxaa lagula hadlaya culammada mujtahidiinta ahe haddii culammadii mujtahidiinta dhammaantood isku waafaqaan xaajo looma qabo in lahaa kitaab iyo sunna loo celinaya caynulxaqi weeyana sideeda u qaata marka waa ijmaacii farudduuhu ila allahi walrasuuli suurada kitaabkiiyo sunnada loogu sheegay in la haleeshiyaana waxay noqonaysaa qiyaaskii bay noqonaysaa marka adiladii sharciga ahayd ee afarta ahayd bay intaba koobsanaysa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatubu ilayk alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira aayaddan xalay aynu marray ee ilaahay amray in ilaahay la ateeco rasuulkiisana la ateeco sala allahu alayh wasalam ulil amrigana la ateeco ficilka taacada rasuulka markii la sheegayey waa la soo celiyey ulil amriga markii la sheegayey lama soo celin mar saddexaad lama sheegin oo lama odhan atiicu allaha wa atiicu arasuula wa atiicu ulil amri minkum
lamana odhan mar keliya ficilka inta la sheego laguma wada cadfin oo lama odhan atiicu allaha waalrasuula wa ulil amri minkum waayo haddii sidaa la odhan lahaa waxaa loo fahmi kari lahaa taacada rasuulka iyo taacada ulil amrigu inay siman tahay mana sinna si aan taa loogu qaadan ayaa markii rasuulka la sheegayeyna ficilkii la soo celiyey wa atiicuu markii madaxda la sheegayeyna aan ficilkii la soo celinoo wa atiicuu aan la odhan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen taasi waxay ku tusinaysaa taacada rasuulku sala allahu calayh wasalam inay tahay mustaqillah oo mutlaqa ay tahay mid sii daysan oo wax walba rasuulka lagu ateecayo laakiin taacada madaxda la ateecayaa ma aha mutlaqoo ma sii daysna oo wax walba lagu ateeci maayo ee waxay ku dabrantoo ku xidhan tahay taacada ilaahay iyo taacada rasuulka waayo rasuulku isagu ma qaldamayo ilaahay baa dhowray laakiin madax kale oo rasuulka ka sokaysaa waa qaldami kartaa waana dembaabi kartaa sidaas aawadeed baa la kala saaray in taacada la ateecayo aan macsi lagu ateecayne waxaan macsi ahayn lagu ateecayo sidaa loo kala saaray yacni macsida iyo hayru macsiyada la kala saaray oo la sheegay wixii macsi aan ahayn lagu ateecayo macnaha caynkaasee culammada qaarkood dee aayadda sidaa uga dhalaaliyeen iyadoo axaadiista ku cad waa tii timi axaadiista qaarkood oo sidaa sheegaysana waa inaga sheegnay allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow atiicu allaha ateeca ilaahay oo wuxuu idin amray fuliyoo la kaalaya wuxuu idinka reebayna ka taga wa atiicu rasuula rasuulkana sala allahu calayh wasalam ateeca oo yeela siduu idinku yidhaahdo amarkiisi fuliya wuxuu reebayna ka taga wa ulil amri kuwa amarka u saaxiibkee u ehelkaana ateeca minkum xaal ulil amrigu idinka mid ahaadeen way mu'miniinta ka mid ahaadeen gaal daaca kuma leh mu'miniinta wax daaca kuma leh fa in tanaasactum haddaa iskhilaaftaan fii shayin shay isku khilaaftaan waa shay umuurtii diinta ka mida ay isku khilaaftaan farudduuhu celiya shaygaas ilallaahi xagga ilaahay u celiya ay ilaa kitaabih kitaabkiisa qur'aanka u celiya waalrasuuli rasuulkana sala allahu alayh wasalam xaggiisa u celiya yacni sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo axaadiista nebiga u celiya qowl daciifa wuxuu odhanayaa ilaah iyo rasuulka u celiya waxaa loo jeedaa waxaad tidhaahdaan allahu wa rasuuluhu aclam tafsiirkaa culammada qaar baa soo naqliyey laakiin waa qowl daciif ah ee sida jumhuuru ahlicilmi ku tageen waxay tahay waa in xukunka shaygaa la ysku khilaafay loo doonto kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam jamaahiiru ahlicilmina saasay ku fasireen waxayna waafaqaysaa aayadda kale allah uu yidhi wama ikhtalaftum fiihi min shayin fa xukmuhu ila allah wax kastaa isku khilaaftaan oo shay ahaaday xukunkiisu wuxuu ahaaday xagga ilaahay buu ahaaday oo xagga ilaahay baa loo celinaya oo rasuulka laftiisu wuxuu amrayo iyo wuxuu reebaayo dee wuxuu ku amrayaa ku reebayaa amar ilaahay oo waxyi weeye wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir haddaad tihiin qaar rumeeyey ilaahay walyowmi alaakhir iyo maalinta damboo qiyaamada ah qaar rumeeyey haddaad tihiin farudduuhu ila allaahi waalrasuul ilaahay iyo rasuulka xaggiisa u celiyey daalika khayrun wa axsanu ta'wiila daalika madkuurkaa la soo sheegay oo ah alraddu ilaa kitaabih wa sunnati rasuulih in kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam loo celiyo khayrun isagaa khayr leh khilaafkiisa khayr idinkuma jiro wa axsanu isagaa wanaag leh ta'wiilan ay ma'aalan xagga caaqibada iyo cidhibdambeedkana kaas baa wanaag leh ismu tafdiili hunaa laysa calaa baabih oo khayrun iyo axsanu loogama jeedo sidan baa idin khayr badan khilaafkeedana khayr baa idinku jira laakiin tanaa khayr badan oo raddiga ah sida kalena wanaag baa idinku jira laakiin tanaa idin wanaag badan muraadku ma aha in xagga ilaahay iyo xagga rasuulka loo celin waayaa khayr kuma jire waa shar markaa khayrku tanuu idinku jiraa baa laga tilmaamaya ta'wiilna hadda tafsiir loogama jeedee waxaa laga tilmaamayaa ma'aalan wa caaqibatan baa looga jeedaa waxaana laga keenay min awl waa noqoshada aala ya'uulu waa noqoshada weeye madaxdii hadday qaldanto waa loo naseexayn karaan laakiin marka loo nasteexaynaayo
وإن مركا لقفق هذا وحي فتنك عنايا سيد النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم أو وحو النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية رسولك أرنا صلى الله عليه وسلم نكي دون يمضح إنه نستيحيه يانو سعدانا أو مركا بنان كتالي يانو أمو تشنين فلا يبديه علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبله وإلا أدى الذي عليه أي رسولك صلى الله عليه وسلم قاربو قلت ليا غصبو وحوق الشيقيا هدو أقبله واسدي ونكسنايد هدو أقبلي وايانا واجب كيسار رواق قتيبا النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ساوق صاروري مركا وحل الدين اياه وحي مركا كعين فتنة السببية وما دام الدين مضحدي مسلم كأهيد ولو ظلم أما فسقبها هاتين لوبح ما دام الدين وحي السبب كان سنيي بحيطان كان سنيي فتنة ذا ايا لقى تحدري مركا النبي صلى الله عليه وسلم سلاه وسهل الله الشيخ عثمان بن عفان وقتي سيبا ضدك قاركود qoonsadeen oo dad qaraabadiisa oo qaarkood la diiday ayuu jagooyin u dhiibay sida inamayo xagga hooyo ka walaala ahaayeen oo Waliid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayyid la oran jiray oo khamriga cabbi jiray Uthman saanu ku ogayn isagu khamriga inuu cabbo aanu sida ku ogayn oo barasaab ka dhiga kuufa meesha la yiraahdo barasaab uga dhiga ninka Uthman waa isku hooyo isku aabasama khamriga buu doodna cabbay isagana barasaab kuufa ka ah isagoo cabsan buu salaadii subax soo galay afar ragcadood ayuu tujiyay markaasuu aziidukum idin kordhiya Uthman markii loo sheegay oo la yiri khamriga waa cabbay waa walaalka xadka ugama baajin wuxuu yiri xadka laga jaro alla jeedlo laba markhaati baa ku furo midna uu yiri isagoo cabbayaan arkay midna wuxuu yiri isagoo khamrigu ka soo kankamaya afkiisa oo khamrigii hunqaacayaan arkay markaas Uthman wuxuu yiri khamri ma hunqaacin inuu cabbay mooyaane jeed la buu yiri Ali ibn Abi Talib agtiisa joogay buu markaa jeedalo xadka ka jar xadiisku saxiix ku sugan yahay في صحيح مسلم علينا إنكيسي حسن أكتشوغ بوري تشيدل حسن وحولي واللي حارها من تولى قارها مضحتني ماذا كل كذا وقم السول لقا وقهر يردب تيدا عدي قبو قيدا توليي بمعنى تشغدي ما دام إنه أينان هاينين دي عثمان هايو دي وحي ردبنا إساقوها قابلو عالبا الشقاضي وعالبا الأرنعي عثمان waa tirinay afartan markuu ku dhuftay ayuu ka daadaba marka hadduu xadka ku ogaado kama saamaxayno waa walaalka xagga hooyo ka walaala ahaydeen kuma daynayn xadkana kagama baajinay niman kale qaraabadiisa oo jagooyin u dhiibayna waa jiray Uthman ibn Affan dadka uu mas'uuliyadka u dhiibayo khalifa caadilu ahaaye ijtihaad bay uga dhacday oo isaga markii waxa uu la muuqatay inay aslax dayihiin kuwan uu jagooyinka u dhiibay marka dad baa aad uga cawday dabadna marka waxa weeye kacdoonkii dambe waa ka kici doona intii kacdoonku aanu dhicin ka hor baa waxa lagu yiri xadiiska Bukhariga Usama ibn Zayd baa la yiri maad Uthman u nasteexaysi oo wax u sheegtay ya markaasuu yiri waanu nasteexayaa buu anigan albaabkii ugu horeeyay fura anigan doonayn inaan noqdo waa albaab fitna inaan furo anaan rabin albaabkaas hortay aan loo furin ayaan marka haddana u nasteexayaa buu u jeedaa albaabka wuxuu ka tilmaamayaa Usama ibn Zayd in si calana oo dadka ugu shaaciyo uu yiraahdo Uthman waad qaldan tahay waxaasaad ku qaldan tahay ee ka noqo oo dad badan oo wax ma garatiya ay maqlaan dadna laga yaabo inay yiraahdaan taladii waa diiday oo ay qaarkood ku gadoodaan albaabku tilmaamayo inuu leeyahay waanu nasteexaya duuna an aftaha baaban lam akun awwala man fatahahu ku sheegaya wataas laakiin waxa uu qabtaan buu yiri hadaanan idin maqashiin inaanan u nasteexayn baa u qabtaan buu Usama ibn Zayd baa oranaya xibbu rasuulillahi wa ibn hibbi wa kii rasuulku uu jeclaa isagiya aabihi mid walba ya
gabadhii reer bani makhzuum markii ay waxaday ee la yidhi gacantaa la goynayaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu amray gacanta in la jaro waa tii dadka qaarkood ay yidhaahdeen ma gabadh reer bani makhzuum ah oo laandheerayaashii quraysheed ka midaba gacanta maanta la jarayaa war yaa rasuulka kala hadlo arrinkaa u shafeeco qaada si uu nebigu uga baajiyo oo yaaba ku dhici karoo arrinkaa laba soo qaadi karaan usaamo ahayn hadda dayba adiga usaama maqaamku nebiga ka joogo cidaan usaamo ahaynoo arrinkaa la soo qaadi kartaa nebiga sala allahu alayh wasallam ma jirto usaamaa loo tegey usaama isagu quraysh ma aha gabadha nebiga kala hadal baa layidhi oo u shafeeco qaada usaamaa nebiga u tegay oo wuxuu ku yidhi qiso kalaan dhex geliyeye waxaan tilmaamayaa maqaamka ninkani nebiga ka joogay inuu ahaa maqaam qaali ahoo aad u sarreeya wa xibbu rasuulillaahi wabnu xibbihi baa la yidhaahdaa waa kii rasuulkuna jeclaa kii dhalay oo zayd ahaana uu rasuulku jeclaa sala allahu alayh wasalam aabbihii oo zayd ahna waa saxaabiga quree magiciisa qur'aanka lagu sheegay falammaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakaha saxaabi kaloo magiciisa bismihi qur'aanka lagu sheegay ma jiro oo aan markaa usaame aabbihi ahayn usaama arrinkii ka shafaaco qaaday nebigu taa waa diidey waayo shafaacadu xuduudda ma gasho laakiin usaame markaa masaladaasi markaa uma caddayn atashfacu fii xaddin min xuduud illaah usaama ma waxaad ka ergaynaysaa ka shafeeco qaadaysaa xad xadadka ilaahay ka mida wallaahi low anna faatimata binta muxammadin saraqat laqatactu yadaha ilaahay baan ku dhaartay cid kale iska daaya faatimo oo ina rasuul ahi hadday wax xadi lahayd gacanta waa jari lahaa buuli nebigu sala allahu alayh wasalam waxay noqotay candhuftiinna dib uga liqa xad shafaaca ma gasho lamana baajinayo anu soo noqdo qisada hore usaamat ibnu zayd wuxuu yidhi waxaase u qabtaan haddaanan idin maqashiin markaan u nasteexaynayo cusmaan inaanan waxba u sheegin oo u nasteexayn baa u qabtaan albaabkaa fitnada anaan furin baan u nasteexeeyaa buuli asheekh ibnu baas markuu tacliiqinayo xadiiskaas wuxuu odhanayaa iyo shuraaxda marka xadiiska sharaxday ee ka horraysayba markii dadka qaarkood albaabka ay fureen oo ay calan ka dhigeen hadalka ay cusmaan ka hadlayaan oo wax ka sheegayaan waxay noqotay inay fitnadii dhacdo aynay ku gadoodaan aynay ka dhalato cusmaan in la dilo taasaa ka dhalatay qiso kale waxay sheegaysaa nin la odhan jiray cabdullaahi ibnu cukaym oo wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam muumin ahaa hase yeeshee aan nebiga la kulmin wakhtigii nebiga muumin buu ahaa nebiga se lama kulmin ayaa wuxuu yidhi laa uciinu calaa qatli khaliifatin bacda cusmaan dil khaliife la dilo nin madaxa maanta dabadeed ma kaalmaynayo oo ma taageerayo markaasaa yaa abaa macbad awa acanta calaa qatli cusmaan abaa macbadow oo cusmaan dilka la dilay miyaad ka qayb qaadatay qaala innii la acuddu dikra masaawi'ihi min alicaanati calaa qatlih waxaan u arkaa buu yidhi oo ku tirinayaa xumaanihiisa in dadka laga dhex sheego inay ka mid tahay ka qayb qaadashada dilkiisa laga qayb qaatay inay ka mid tahay way ka asaxday taabicigaa siqada ah ee mukhadaramka aasaasna saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdaan dariiqa salafku wuxuu ahaa inay si markaa hoose ugu naseexeeyaan madaxda sidaas yadaabay ahay hadduu ruuxu awood u leeyahay inuu ninka madaxdaa u tago oo runta u sheego laakiin arrinka aanu dadka dhexdooda ku faafin ayay salaamadu tahay nebiga waxaa laga soo wariyey sala allahu alayh wasalam inuu yidhi xadiis culammada qaarkood ay sanadkiisa ka hadleen bacdu ahlicilmina ay soo dhoweeyeen sayidu shuhadaa'i xamza wa rajulun qaama ilaa imaamin jaa'irin fa amarahu wa nahaahu faqatalah shuhadada waxaa ugu markaa mudan xamze iyo nin u tegey nin madaxoo daalim ah u tegey oo waxna amray wanaagga xumaantana ka reebay oo u dabadilay bacdu ahlicilmi sanadkiisa waa ka hadleen hadduuba see sugnaado culammada qaar baa quweeye oo taxsiiniyaye laftiisu sheegi maayo in dabadiisa wax laga yidhaahdo ama marka laga maqan yahay in dadka markaa xumaanihiisa loo soo faarfaadho oo lagu diro ee wuxuu sheegayaa wa rajulun qaama ilaa imaamin jaa'irin ilaa gaayay sheegaysaa in isaga loo taguu sheegayaaye in dabadiisa wax laga yidhaahdo ma sheegaayo hadduuba asaxoo sugnaado mid kale wuxuu tilmaamayey kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir
isagana waxa ku sugan cinda la cinda ghayrihi kuma sugna ee cindahu baa ku sugan isaga agtiisa in laga odhanayo marka wax daliili labada xadiis midnaba uguma jiro taas waxaana la ogsoon yahay alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid bay culammadu yidhaahdaan waa qaacida fiqhiya wasaa'ishu waxay leedahay maqaasidda ay ku gaadhsiinaysay xukunkeeda leedahay marka wasiiladii khuruujku waxay noqonaysaa iyaduna xukunkii khuruujka inay leedahay siday ahlucilmigu tilmaameen marka waxa weeye dirista dadka lagu dirayo ee manaabirta laga caayo ama waxa weeye fagaarayaasha laga caayo waxyaalaha noocaasi waxay leedahay say ahlucilmigu sheegeen xukmu alkhuruuj ayay leedahay liannaha wasiilatun lahu wasiilay u tahay wasiiladuna xukunka maqaasidiyo gaayaadka ayay leedahay ahlucilmiguna calaa kulli xaal mawduuca aad bay uga hadlaan haddii wax lagu qoonsado in loo duceeyo inuu ilaahay islaaxiyo baa wanaaggu ku jiraa waayo salaaxa u hagaago oo u wanaagsanaado ou shareecadii iyo caddaaladdii ku qumanaado waxaa ku jira ummaddii oo markaa hagaagaysa ayaa markaa ku sugan saas aawadeed baa a'immadii hore ee salafku ay odhan jireen low kaanat lii dacwatun mustajaabatun la dacawtu lisultaan haddii laygu odhan lahaa hal ducaa laga aqbalayaa ducadaa waxaan ugu ducayn lahaa boqorka yacni ninka madaxda ah waayo haddaan naftayda ku ducayso nafcigeedu waa khaas oo waa gaar laakiin haddaan isaga ugu duceeyo nafcigii waa tacadiyayayoo dadku gaadhaya iyo beledkaba ayuu gaadhay marka loo ducaynayana inuu ilaahay islaaxiyo hagaajiyo oo uu cadaaladdiiyo wanaagga iyo taacada iyo sharciga ku qumanaantiisa inuu ilaahay ku toosiyo oo sidaa ku islaaxiyo ayaa markaa